هدي جرتو عد كرر حمر أنا خاصان رر فخيا نهاي مساكين نهاي ضد وحكة ما قلب سنن مسكين يريد يسفدي نسال لو يما على شن كل دلو حقوق ما خبطه إلهي حلقة عبصده هدي ربتان ربتان دولة يهو صومال هدا دونيسان ودن كينور نسمع oo Soomaali midowdo oo dadka Israacaan aad doonaysaan xaq baad ku jirtaan xaq darad ku jirtaan xaq qaata Xasan Sheekh waxa lagu arko ra'iisul wasaare waxa lagu arko madaxda dawladda dhammaan Saudintiin alla idin arko miskiin aan waxba galabsan irsaaqad u soo doontay iridkiisa u fariistay ina saa u gashaan oo la aamuso toon qaadanayna ma aha xaq daras ku dili سدحكم شنكون اسكت شنكون خوف رودي ميا نكا معفنينو إنا شرع المرسي واي كوليسي واي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون مدينة وآله الله أن حريستو مرحوم كاس لو قد لي حمر وينه عقوبة ay xamar la degi weysay muqdisho cuqubada ay la degi weysay waa dadka sidaas ah ee maalin walba lagu dilayo bilaa sabab gurigiisa iridiisa buu qutulyoonkiisa ka raadsanayay muddo 30 sano ah Allah u naxariisto intii uu ka tagay samri iimaan Allah ka siiyo muqdisho 30 sano waxay la degi weysay dad baa lagu dhibaateeyaa aan awoodin inay iska celiyaan dadka dhibaateynaya muqdisho inta lagu dhibaateynayo dadka aan cod iyo muruq aan dadka iskaga celin karin ee lagu dhex cunayo ee lagu dhex dhibaateynayo muqdisho saasay ahaanaysaa miskiinkaas 5,000 iyo wax la mid gurigiisa iridkiisa ka raadinaya canshuura laga qaaday canshuurtaas waxa cunay xildhibaan gaari waterproof ku socda wasiir gaari waterproof ku socda hoteelo ku degan ya dunidan Soomaalidan rogmaday dadkan qaaqaawan dadkan dabada iska rogto waxay rabaan sameynaya waxa lagu koriyay xoolahaas cuqubadaha lagu koriyay dad miskiinkaas Allah u naxariista iyo kuwa lamida lacag laga qaado ayaa dad hotel ku degan yihiin ayaa dad ku raaxaysanayaan ayay ilmo ku biilayaan haddana waxa la fiirsan kara maaha waa cuqubo qof miskiina oo gurigiisa hortiisa ku ganacsanayo oo ganacsi weyn oo maanta baqaara lahayn ee miis dhalla guriga iridkiisa uga furan yahay in lagu dilo 5,000 oo shilin Soomaaliya maanta in 5,000 oo shilin Soomaaliya marxuumka u dhinto waxay ku cadeynaysaa qofka qoriga wata ya in cadaalad cid u sameynaysa inayna jirin askarigaasi ka baqi maayo ya waa lagu dilayaa qofkan sharciga lagu marsiinaya cadaalada maraysa oo jirta ka u baqi maayo uu ishubaa haduuse ishubinna maandooriyow waa ku maqan oo meel uu jooga ma oga dalkeena maandooriyo waa dilay madax manaxda ah oo dadka iska cunaya oo waxay rabaan ka cunaya oo lacagtan xagee laga keena ma jirto ya xildhibaanka lacagtu ku xisaabtamaya xagee laga keena ma jirto wasiirku lacagtu ku xisaabtamaya xagee laga keena ma jirto dadka dhibaataysan oo guryahaas aragto durufka ku jira ya baa wuxoodii la cunaya oo inta canshuur laga qaado la cuno dilna loogu daraya marxuumkan waqtigiisii ma dhaafeen waqtigiisii wuu ku dhintay laakiin inteena nool maanta oo naftu ku jirto waxaan dareemaynaa inay cuquba jirto in darxumada loo wada dhimanayo in dalkeenu wax cadaalada iyo wax wanaag u wada ayna maalin xil qaban
maalina ku hamin kulli waxa xilka ku haminaya hadda iyo waxa hadda xilka haya nin walba wuxuu u taagan yahay dantiisa asaga dantiisa bisu u taagan yahay ma jirto qof dhahaya dantayda waxaan ka hormarinayaa danta guud Soomaaliya xilna uma qabanayo horna uma soo qaban haddana uma taagna waa laga yaabaa maalin maanta ahayn ilaahay inuu noo keeno dalaaladaas laakiin cuqubadaasi oo iska socota oo meel kasta ka dhacayso oo maalin kasta taagan oo dadka miskiinta oo birmageydada lagu dilaayo yaa miskiinkaas aan waxba galabsan maanta yaa 5,000 oo lagu dilay ogow wasiir baa mushaar u qaadanaya lacagtaas lacagay ku jirto xildhibaan baa mushaar u qaadanaya ilmo iyo reero ku biilanaya hadhowdii raba awlaad anfacada inuu halkaa ka helo ilaahay u naxariisto marxuumkaas intii uu ka tegay eheladii uu ka tagana samir iyo iimaan allah ka siiyo Soomaaliyana inta dadkaasi dulban yihiin nabad ha ka sugin muqdishona nabad ha ka sugin inta dadkaasi dulman yihiin ee sida loo galayo muqdisho nabad ha ka sugin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته